أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد أنا حرمنا مانتنا ماشان أنكو شرحنا فرقي ودحيا accounts payable and accounts receivable. هدان كبلاون accounts payable محل لها accounts payable are the amount that a company owes to its supplier. accounts payable كحالها lacagta kambaniga lagu leeyahay uu ku leeyahay qofka supplierkiisa lacag walba oo kambanigeena lagu leeyahay uu ku leeyahay qofka supplierkeena lacagtaas waxa la accounts payable. Simply waxa la accounts payable waxa waay lacagta lagu leeyahay waa adiga. Okay, waxa isweydiinayna waxa waay lacagtaas oo accounts payable ka oo lagu leeyahay sidee lagu lahaado aniga maxaa sabab in lagu lahaado in lagu lahaado waxaa sababay waxa waay alaabaa soo iibsatay waxaanu ku soo iibsatay qaab deyn ah mar walba oo aad alaab soo iibsatid waanu ku soo iibsatid qaab deyn ah lacagtaas lagu leeyahay waxa la accounts payable okay laba condition ku xiran inay waxaan noqdaan accounts payable. marka koowaad waxa waa inuu dhaco purchase dhaco inaad wax soo iibsatid. condition kagan wuxuu noqonayaa inaad ku soo iibsatid sheygaas qaab deyn ah okay conclusion waxa waay account payable waxa lacag oo lagu leeyahay qofka supplierkeena sababta oo noogu lahaado lacagtaasna waxa waay alaabaan ka soo iibsanay waan waxa ugu soo iibsanay qaab deyn ah alaabtaas. okay account receivable maxaa waa asigan waxaan account receivable waxa waa asigana cagsiga accounts payable ka waay maxaa laga wadaa waxa laga wadaa waxa waay accounts receivable waxa waay lacagta adiga aad ku leedahay macaamiishaada waay. okay sababta aan ugu lahaaday macaamiishaas lacagta deynta ah maxaa waay maxaa keenay inaan ku lahaado account receivable kan wuxuu dhacaa markii aan anaga alaab ka iibino qofka macaamilkeena aan ugu iibino qaab deyn ah waay. okay ibnis waxa waay customer ku imaaday wuxuu ka iibsaday computer wuxuuna kaaga iibsaday lacag deyn ah lacagtaas waxa la account receivable waay deyn anaga noo maqan waay. okay sidoo kale tan account receivable inuu dhaco two conditions ay ku xiran tahay midkood waxa waay sale inaan wax iibino oo ka iibino qofka macaamilka condition ka xiga waxa waay inaan sheygaas aan ku iibino qaab deyn ah. markay labadaas condition imaadaan lacagtaas noo maqan waxaan dhahaynaa accounts receivable lahaa deynaa noo maqan waxaan iibinay waxaan ku iibinay qaab deyn ah lacagta noo maqanna waxaan dhahaynaa accounts receivable waay. conclusion ka waxa waay accounts receivable waxa waay lacagta aan ku leenahay anaga macaamiisheena waay. okay meeshaan xigta waxa ku qoran waxa waay inta hadda soo sheegaynay oo lagu muujiyay qaab picture ahaan waay waxaan waxa waay account receivable waxa lacagta aan anaga ku leenahay macaamiisheena waay. sidoo kale tana accounts payable waxa waay asigana lacagta ay nagu leeyihiin supplierskeena waay. okay waxaa jirta saddex farqi waaweyn oo u dhaxaysa accounts receivable iyo accounts payable waay. farqiga koowaad wuxuu noqonaa markaan joogno the basic accounting equation ka waxa ku qoran saddex shay ku qoran oo ah assets liability iyo equity oo asset is equal and liability plus owner's equity or equity waay. dan waxaan dhahaynaa account receivable ka wuxuu ka tirsan yahay asiga asset ka qaybta asset ku tirsan yahay hanti waay asset adiga aa leedahay waay receivables because of receivables ka dhow markii lagu keeno lacagtaas waxay noqon doontaa cash ay noqon doontaa oo asset ah waay halka payables kana ay yihiin liability deyn qaybta deymaha galayaan waay. farqiga xiga waxa waay the cash flows account receivable ka markaan joogno wuxuu noqonaa asiga cash inflow lacag ku soo galayso waay sanduuqa ku soo xaroonayso waay waxayna keenaysaa inuu kordho lacagta cashka uu kambanigaaga haysto waay. halka account payable ka asigana waxa waay cash outflow waay lacag aad bixinaysid waay because account payable waxa waay lacag deyn ah lagu lahaay waay waxaan laga rabaa lacagtaas deynta ah oo lagu lahaay in iska bixisaa laga rabaa. markaan joogno account payable ka waxa waay
cash outflow lacag aad bixinaysid waay waxayna sababaysaa inuu hoos u dhaco lacagta cashka haysatid farqiga saddexaad waxaa waaye markaan joogno balance sheetka account receivables-ka iyo account payables-ka xaggee ku qormayaan ayaga saa ognahay balance sheetka waxaa lagu qoraa saddex shay aa lagu qoraa asigan oo ah asset aa lagu qoraa liabilities iyo equity conclusion waxaan dhahaynaa maxaa la dhahay account receivables-ka waxaa lagu hoos qori doonaa dhanka assets-ka halka account payables-ka lagu hoos qori doono dhanka liabilities-ka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.